halkan oo ah hotel Xayaad ee magaalada Hargeysa waxa maanta ka bilowday shir laba dhinac ah kaasi oo u furmay Xisbiga Mucaaradka Somaliland oo helay aqlabiyada golaha deegaanka iyo wakiilada Somaliland doorashadii 31 bishii May ka qabsantay guud ahaan Somaliland. warar aanu helayna waxa ay sheegayaan in shirkan uu yahay mid hordhac u ah loolanka loogu jiro maayrada magaalooyinka Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland iyadoo xisbiyada mucaaradku ay doonayaan in ay hoggaanka u qabtaan magaalooyinka iyo shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland maadaama ay heleen aqlabiyada doorashadii 31 bishii May ka qabsantay Somaliland sida ay sheegayaan natiijooyinkii hordhac ahaa ee ay ku dhawaaqeen gudida doorashada Somaliland. shirar istabajoog ah ayaana la filayaa in ay maalmaha soo socda ay u qabsoomaan Xisbiga Mucaaradka Somaliland ee xisbiyada Ucid iyo Wadani. wixii warare ee ku saabsan shirarkaasi iyo waliba natiijooyinka la filayo in ay ka soo baxaan loolanka loogu jiro maayrada magaalooyinka Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland halkan ayaad kala socon doontaa maalmaha soo socda haddii Allah awood la ogolaado.